بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بكر محمد يلحو ودنا سعدين دونا عشركة جابتر كوبات ترينومتري اكسامبل كسجالات وحان كيلي كرتا بيجكا ده تومنات بوق حساب تفون فوركا منهجكا لوضكم لواتن كوي لواتن هدبا verify that the following question is an identity. waxaad cadeynaysaa in selector tan soo socota ay tahay select identity oo mid Allah macnaheedu waxa weeye hadii data meel kasta data in ku aragno labada dhinacba hadii ku bedelno qiimo isku mida inaysan waxba iska bedeleen labada dhinacba aan heli doono same value inagoo isticmaalayna some identities-ka inuu sin A plus B oo leeg sin A cos B plus cos A sin B iyo sidoo kale anagoo isticmaalayno cos A plus B oo leeg cos A cos B minus sin A sin B aynu ka shaqeyn doonaa insha Allah. Hadaba select watan identity marka hore san ayuu qoraa waxaan leenahay sin A plus B sin A plus B anoo isticmaalayna waxaan leenahay sin by 6 cos theta plus cos by 6 sin theta. Ilen by 6 waxay noogu taagan tahay by 6 waxay noogu taagan tahay A theta na waxay noogu taagan tahay B. Marka meesha sin A meel kasto ayaa ku bedel by 6 meel kasto B na ku bedel theta adigoo isticmaalaya sin A plus B. lagu daray cos by 3 plus theta meel kasto ku aragto A waxaad ku bedeli doontaa by 3 meel kasto ku aragto B na waxaad ku bedeli doontaa theta adigoo isticmaalaya identity-ga ama sama identity-ga labaad ee cos A plus B. marka hadaynu cos A plus B aynu ku bedelno by 3 iyo plus theta waxaynu leedahay cos by 3 cos theta minus sin by 3 sin theta. sababtoo ah cosku calaamada hadii plus tahay uu bedelaa minus bay noqotaa hadii minus tahayna plus bay noqotaa laakiin sinku isagu markasta waa un calaamadiis. hadaba marka waa ka bilih baan ka saarnay wax kala maanan qaban marka dan inuu sin by 6 qiimaheeda aynu raadino half y sababtoo ah sin by 6 tan ayaa waxay u qoran tahay as a radian hadaynu u qorno degree inta badan ardayduna degree-ga ay xifdin og yihiin marka sin 30 degree oo kale weeye waa 1/2 cos theta kusoo dhifa waa ka plus cos by 6 waa cos 30 degree macnaha 1/3/2 sin theta na waa ka soo qaad plus cos by 3 macnuhu waa cos 60 degree cos 60 degree na waa half ku dhifo cos theta minus sin by 3 waa sin 60 degree sin 60 degree na qiimaheedu waa √3/2 kusoo dhifo sin theta. hadaba waxaan leenahay 1/2 cos theta halka markaan eegno √3/2 sin theta oo plus ah halkana waa √3/2 sin theta oo minus ah. hadaba waan isla saari karnaa waxay noo soo haraya 1/2 cos theta oo plus ah iyo 1/2 cos theta oo plus ah. hadaba labadooda isku darsanayna marka waxaan leenahay 1/2 cos theta oo lagu daray half cos theta intana waxay leeyahay inuu isticmaalina fraction hoosayaashu isku mid yihiin labada labaad dib baan ku qaadan sarayaashana isku darayna hal haddana ku dhifan cos theta waa cos theta oo kaliya plus hal ku dhifan cos theta na waa cos theta. hadaba cos theta lagu daray cos theta waa 2 cos theta lagu daray cos theta mesela oo iyadoo lagu yiri x lagu daray x. hadaba x hadii x lagu daro waxa ku soo bixi lahaa 2x baa ku soo bixi lahaa 2x. saas oo kale ayuu asaguna la mid yahay cos theta hadii lagu daro cos theta waa 2 cos theta. hoosna waxa ku yaalay laba hadaba labada kore iyo labada hoose ayaynu soo qaybinaynaa hal baa soo haraya cos theta ayaynu ku dhifanaynaa hadda hal wax kala bedeli maayo marka waxa soo baxaya ku soo bixi doona cos theta. hadaba saas aynu waxaan leenahay ay waxay ku tahay profit hadaynu dib u laabano cadee in inta la eg tahay inta. hadaba waxaynu helnay in
markaan soo shaqeynay in halaha aynu helnay ay tahay cos theta waana qiimihii inagala doonay. haddaba inta ayaan kusoo gabagabeynayaa insha Allah ta'ala wa inoo qaybta xigta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.